dadkii oo dhan kulli way ka tageen way tageen qabriga kaligeed ayaan ku soo hadhay. geeridu waa marxalad ama imtixaan uu marayo qof kasto, dhammaan waan wada soconnaa balse waa la kala horeeyaa. geeridu waxay reebtaa xanuun iyo xaalad gaar ahaaneed oo ay ku reebto qofka ehelku waa ruuxa geeriyooda. kani waa daaciga dhalinyarada oo lagu magacaabo Mukhtaar. waxaa geeriyootay walaashiisa la dhalatay. waxa uu sheegay in maalmo ka hor ay wada kaftamayeen walaashiisa oo hididiilo la xiriirta dunidan ay ka wada hadlayeen, balse taasi wax kasta ay bedeshay ajasheeda u timid. daaci Mukhtaar ayaa markii uu tagay qabriga walaashiisa lagu aasayay waxa uu ka haray dhammaan dadkii aaska ka soo qayb galay, waxaana uu yiri maanta qabrigeeda aniga ayaa qodaya, waxaan ahay qofka ugu dambeeya ee ka tagay qabrigeeda. Mukhtaar oo mararka qaar ilmadan cisho karin ayaa muuqaal kooban uu iska soo duubay waxa uu kaga hadlay qiimaha walaashiisa ay lahayd. waxa uu yiri waxay ahayd gabar wanaagsan oo mar walba aan wada kaftanno, waxay ahayd ruux qiimo badan, balse Allah ayaa naga wada jeclaaday. aasku ay ka soo qayb galeen boqolaal qofood, balse markii aasku soo ilaaday dadka waxay ka dulwadi waayeen qabriga. daaci Mukhtaar uu dareemay xanuun gaar ah. qabrigu cabaar lagu nagaado iyo sidoo kale ruuxa geeriyooday oo loo duceeyo waa wax wanaagsan isla markaana qiimo badan. daaci Mukhtaar ayaa yiri qofkii aan jeclaa waan waayay, laakiinse ima maqlayso. muuqaalkana waxa uu ii noqon doonaa xasuus aan daawan doono isagoona alla ugu baryay walaashiisa inuu u naxariisto. maanta magacaaga waa uu isbedelay, anna waan kaasii tegayaa. sidaas waxaa yiri daaci Mukhtaar isagoo ilmeynaya ayuuna ka soo dhaqaaqay qabrigii, waxaana uu ku soo gabagabeeyay muuqaalkiisa. aniga ayaa ballan qaadaya inaan baxsho deymaha lagugu lahaa, isla markaana aan baxnaansho carruurtii aad ka tagtay walaasheedii. maanta magacaaga wuu isbedelay walaal, wuu isbedelay. meyd baad noqotay, xigtadaadina way kaa tageen, aniga ugu dambeeya, aniguna waan tegayaa. waan sii socdaa. rabbigaaga waxaan ku weydiinayaa qabriga Allah ha ku wasiiyo.